waxaa la Yuusuf Xali Jimcaale waxaan ku dhashay Xamar degmada Yaaqshiid xaafadda Tokyo meel oo basiid degmada Yaaqshiid ku taalo 76 aan dhashay waxaan ku koray agoonnimo hooyaday afar aan ahayn agoonta isku bah ah 3 wiil iyo gabar wiil kaloo naga weyn aan jiro isku hooyanahay iyo gabar naga yaro adeer oo hooyadu meel gadaal ka dhalatay hooyaday waxay nagu korisay yaanyo ay gado iyo hilib ay gado iyo muufa ay dubto iyo canjeero ay dubtay nagu korisay nolol aad u adag ay ahayd dugsigayna wuxuu ku yiri degmada Yaaqshiid macallin Umar Xasan Allow naxariistay iska lahaa macallinka ahaa run ahaantii waa dareemi kartaa nin agoonnimo ku koray hooyadiina ay gadayso khudradda iyo hilibka iyo muufan ay dubto gabarna weynaa jirto ku nool xirooyinka qaxootiga ee la yiraahdo Zainab Xali Jimcaale weyn oo qod naga soo korisay oo hooyada la duubi jirtay xilli muufado si nolosha u dalaadacisay dawladda yaa dhacday dawladda markay dhacday ka bacdi waxaan noloshii aan annaga wax ka raadinay waxaan tegi jirnay intaysan dawladda dhicin ee dawladda jirto gabadha walaashayna weynaa nawadi jirto nagee jirtay Xamarweyne goobaha bacaha lagu gaday iyo kawaanka Xamarweyne iyo ciyaalka looska iibiyay iyo xillina waxbaan baran jirno inkastoo waxbarashadeena musalsal iska ahday markii la dalaadacayay fallaahi alxamdu kulley waa dhamaysanay tacliintii intaas kadib dawladda yaa dhacday dawladda markay dhacday waxaa noola qaxiyay baadiyaha oo hooyaday ku dhalatay oo la dhihi jiray Runurgood oo ka tirsan Hirshabeelle gobolka Shabeelle Dhexe kadib dagaalkii ka bacdi waan soo laabanay xaafadda aan ku soo laabanay noloshii wax ka raadiyay 92 iyo 93 iyo 94 iyo 95 waxaan ahaa ciyaalka iibiyay joornaalada isgooska Sancan ku iibin jiray ka bacdi waxaan isbaranay nin wanaagsan oo Cismaan Xuseen Axmed Cismaan Wariyay la yiraahdo oo lahaa goob internetka iyo markuu bilaabanayay iyo photocopy iyo waxyaabaha shaqooyinkaas aan ka shaqeeyay intaas hore 3 sano laakiin waxaan ahaa ciyaalka iibiyo wargeysyada ka soo baxa Muqdisho gelinka dambana wax baan naga jiray iskuulkii Al-Cimro iyo iskuul kale oo ku yaalo hodan oo anka dadii jiray ka bacdi waxaan noo soo gashay 98 inaan shaqo ka helo meesha la yiraahdo shirkadda Barakaad ee Siinay oo lahaa nin saaxiibkay Cali Maxamed Geel la yiraahdo 2000 waxaan ku biiray ganacsiga iibinta daawada wallaahi alxamdu shaqooyinkayga meelahaas ayay ku saleysnaayeen ka bacdi Sheekh Shariif aan isbaranay ka bacdi 2009 xildhibaan aan soo noqday 2012 xildhibaan aan noqday 2016 deegaan doorashadeeda Galmudug xildhibaan aan ka soo noqday rumaantii waxaan soo maray nolol xanuun badan oo marka qaar markii ay ugu soo dhacdo amba aan xasuusto aan dareemo xanuun oo gudaha ah maalin aan u joogo gobolka Banaadir waxaan arkay wiil yar oo carabka oo gobolka joogo oo gobolka agaas waxaan ka yaallay oo shaqeynayo aadaan uga xanuunsaday inuu tacliim helo iyo waxbarasho helo marka fahmo taariikhdayda si bayaansan ugama hadli karo oo waa nolol xanuun badan ay ahayd marka intii aan ka xasuusto amba intii aan ka qarsanahay nolosha iyo qadarka iyo Ilaahay maaragta waxyaabaha uu ku qadarana lagama dhuunto lagamana boodo marka culimo badan oo suuqaad nin
dhinto Sheekh Cabdilmajiid la dhihi jiro caalimo tafsiirka akhrin jiray oo masaajidka jaamaca waladi ku akhrin jiray oo ku yaala Janal Daa'uud fahamka islaamkana wax badan aan ka fahamsanahay iyo wacyiga caalamka ka jira hadda adduunyada lacbooyin fara badan ka jiro marka faleel alxamdu maanta nin wax og ayaan ah